hankii qaranka rumoobay hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena ayaan ka tubtisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay ilaa cirka ku hor bismillaahir rahmaanir rahiim hawsha balaaran maanta aad qolada warbaahintiina ku arkayseen ka socota kaydka biyaha Hargeysa oo ahayd gaari ximaarka ama dameerka u dhaamiya dameerada u dhaamiya caasimadda lagu soo ururiyay barta ujeedaduna ay ahayd in loo sameeyo astaamo u gaar ah sumado u gaar ah lagu karto number u gaar ah isla mar ahaantii lagu dhajiyo qiimaha ay u geysay wakaaladu inay wax kaga iibiyaan shacabka anagoo markii hore dhameystirnay nooca loo yaqaan dameer qadiya ama dameer nasiya hawshiisa maamuladiisa in laga maamulo shacabka inay biyaha kaga iibiyaan waxay doonaan dhammaan kaalmaha biyaha ee wakaaladu maamusho ee ku yaala caasimadda waxay foosada biyaha ka siiyaan gawaarida yaryar kala duwan haday yihiin gaari ximaarka loo yaqaan haday yihiin dameer nasiya ka loo yaqaan 3,000 oo shilin wakaaladuna waxay u goysay inay ku iibiyaan 12,000 oo shilin haday sidaa tahay ma haboona amba waa shay waa dulmi in ay shacabka ka iibiyaan qiimo gaari mararka qaar 18,000 17,000 20,000 oo shilin iyagoo foosada ku soo qaatay 3,000 oo shilin marka cabashadu inay naga iiminayso ahayd hadii dameer nasiyihii la maamulay oo qiimo loo gooyay qiimihii loo gooyay ay wax ku iibiyaan dhamaantood kana waa in la raaciyaa marka taanu sameeyay maanta waxay ahayd in dameerkan ama gaari ximaarka loo yaqaano qiimihii ay wakaaladu u goyso 12,000 oo shilin ah dushiisa lagu qoro ama lagu dhajiyo board yar oo ku qoran yahay qiimaha wax ka iibinaya shacabka sumadii lagu garanayay amba number u gaar ah dameer kasta oo wakaalada ka record garaysnaan doona iyo telefoonkii wakaalada lagala soo xiriiri lahaa hadii inta wax ka duwan ay shacabku yiraahdaan marka tan shacabweynaha ka doonayna waxa weeye nimankan amba ganacsatada yaryar ee ku shaqaysatay gaari ximaarka ama dameerka maanaan dulmiin qiimahan u goyno qiimo ku haboon waa qiimo ay ku faa'iidayaan 3,000 ayaga foosada laga siiyaa 12,000 oo shilin baan u goyneenay siiyaan yaani waxa weeyaan inta u saaran waa 9,000 oo shilin marka isaga 3,000 laga soo siiyay duruufahooda kalena oo ka war haynaa markaas waxaan isku dayeynaa xaqii biyaha si u heli lahaayeen inaanu ka taageerno in kaalmaha u dhaamiya aanay ku dhibin biyaha laakiin waxaan kala doonaa iyaguna shacabka inuu naxariistaan oo qiimaha iyaga iyo shacabka waxa u dhaxeeya wakaalada qiimaha ay wakaaladu u geysay wax ku iibiyaan oo aanay dhaafin taano aan ku maamulana kii dhaafina talaabooyin ku haboon baan ka qaadanay jabiye sicirka ay wakaaladu u geysay hawshan waa hawl dhammaan gaadiidka yaryar ka adeega caasimadda haday tahay dameer nasiyaha ko loo yaqaan ama dameer qadiya haday tahay gaari ximaarkii caadiga ah ee la yaqaanay oo adeega jiray Hargeysa dhamaantood aan ku maamuli doono oo markasta ku hubin doono in shacabka caasimadda loo biyaha laga iibiyo qiimo macquul ah qiimaha wakaaladu u goysay iyaga qoladan yaryar ee gaari ximaarka wadata ama dameer nasiyaha wadatana iyagana aanu ka hubinaa markasta qiimihii aanu goynay in iyaga laftooda wax laga soo iibiyo foosada 3,000 oo shilin isagoo foosada 3,000 ku soo qaato 12,000 oo shilin oo ku iibiyo wakaaladuna ka taageerto markasta inaan wax caqabado badan kaga iman xaqii helida biyaha oo soo heli lahaa oo loo fudaydiyo hawshan waa hawl aan ugu talagalnay shacabka inay wax u tarto oo danta shacabka ku jirta marka qolooyinka yaryar oo qaar badan oo kamid ah ku amrayna oo farayna inay ilaaliyaan qiimaha wakaaladu u goysay inaanay ka bixin wakaalada inay la shaqeeyaan oo amirteeda ilaaliyaan siyaasad cad baanu ka leenahay hawshaas qolooyinkii jabiyana waxa weeyaan xeerkii iyo shuruucda iyo xeeroosaadka wakaaladu wuxuu dhigayo ayuu malmarin doonaa assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ilaa cirka ku horay